balqiyaas adigoo ku jira maalin caadi ah oo shaqada maalinlaha ah ee ah inaad dadka u geyso biidsada kadibna lagu qabanayo meel madow waxaana qoorta lagu xirayaa mashiin weyn oo ah bam saacad wata waxaana lagu leeyahay haddii aadan bangigan soo dhicin oo aadan raacin tilmaamaha khariiradan muddo 15 daqiiqo gudahood ah madaxa ayaa laga jarayaa oo bamka ayaa kugu qarxaya tani maaha film Hollywood ah waa mid kamid ah dambiyada ugu yaabkii naxdinta badan ee abid ka dhaca adduunka kaasoo si toos ah loogu baahiyay telefishinada dalka Mareykanka sanadii 2003 nin magaciisa la yiraahdo Brian Wells ayaa galay banki wuxuuna qaatay lacag laakiin markii boolisku qabteen wuxuu bilaabay inuu calaacalo oo yiraahdo ma ihi tuug waa la khasbay ee bamka iga fura laakiin intaynu booliska u soo dhawaan bamkii ayaa si toos ah u qarxay halkaasna ay ku dhamaatay naftii Brian laakiin halkan waxaa ka bilaabmaya isweydiintii iyo baaritaankii ugu yaabka badnaa ee FBI-du abid gasho ma Brian ayaa ahaa dhibana la khasbay mise wuxuu qayb ka ahaa shirqoolkan weyn maanta waxaynu muuqaalkan ku ogaan doonaa sirtii ka dambeysay Pizza Bomber soo dhawaada saaxiibayaal waa anigoo ah Ismaaciil Dacal like sar muuqaalka haddii aad nagu cusub tahayna subscribe noo dheh channelka mahadsanid wax walba waxay bilowdeen duhurnimo caadi ah saacadu waxay ahayd 1:00 duhurnimo taariikhduna waxay ahayd August 28 sanadii 2003 Brian Wells oo ahaa 46 jir kuna caan baxay nin degan ayaa helay wicitaan shaqo qof ayaa dalbaday 2 xabo oo pizza ah wuxuuna yiri igu keen pizzaha dureedka magaalada halkaas ay ku taalay munaarad weyn oo isgaarsiineed Brian wuxuu qaatay pizzadii wuxuuna aaday goobtii wixii halkaas ka dhacayna qofna ma arkin laakiin saacad kadib Brian wuxuu soo dhaxgalay bangiga PNC isagoo qoorta ay ugu xiran tahay bir weyn oo uu shaati ka soo dulgashaday si uu u qariyo wuxuu miiska saaray warqad ay ku qoran tahay keen $250,000 oo cash ah waxaadna haysataa 15 daqiiqo qoorteeda bam ayaa ku jira gabadhii bangiga joogtay aad bay u argagaxday waxayna u sheegtay in maqsinka weyn lacagta aan hadda la furi karin waxaana u dhiibtay kaliya $8,702 Brian si degdeg ah ayuu lacagtii u qaatay wuxuuna ka baxay bangiga booliskii ayaa daqiiqad kadib ku hareerayay Brian meel baabuurta la dhigo oo parking ahayd waxay ku amreen inuu dhulka fariisto markay u dhawaadeen ayay arkeen wax ka naxsaday oo ah birta weyn ee qoorta ugu jirta Brian wuxuu bilaabay inuu qayliyo oo uu booliska ka codsado caawimaad wuxuuna ku yiri maaha wax kaftan ah qofba ay u xiray mashiinkan wuxuu ii dhiibay waraaqo aan ku xalinayo ciyaar khamaar ah si aan u helo furaha mashiinka fadlan meesha ha iga teginina waraaqaha Brian lagu helay waxay ahaayeen kuwo si cajiib ah oo xirfadnimo leh loo qoray waxay lahaayeen tilmaamo adag oo ah inuu meelo kala duwan oo magaalada ah ka raadiyo furaha sanduuqa qoorta ugu jira isagoo raacaya khariirad khamaar ah nasiib daro markay saacadu ahayd 2:18 daqiiqo mashiinka qoorta ugu jira Brian wuxuu bilaabay inuu dhawaaq degdeg ah ka baxo 3 daqiiqo kadibna bamkii ayaa qaxay Brian halkaas ayuu ku dhintay isagoo adduunka kaga tagay mid kamid ah su'aalihii ugu waaweynaa ee taariikhda dambiyada FBI-du waxay bilaabeen baaritaan weyn markii ay baareen bamka waxay ogaadeen inuu ahaa mid si la yaab leh loo farsameeyay oo leh qufullo adag iyo siliyo been abuur ah oo loogu talagalay in lagu weerariyo cid kasta oo isku dayda inay furto tanina waxay cadeysay in dadkan waxa sameeyay ay yihiin kuwa aqoon sare u leh hubka iyo farsamada maalmo kadib baaritaankii wuxuu markasta ku soo noqnoqonayay meeshii ugu horeysay ee biidsada laga dalbaday oo u dhaweyd munaaradii isgaarsiinta ugu dambeyn waxaa soo baxay Bill Rothstein oo soo wacay booliska wuxuuna ku yiri qaboojiyaha gurigayga waxaa ku jira nin meyd ah markii boolisku u tageen waxay ogaadeen in guriga Bill uu ku dhow yahay munaaradii Billna wuxuu booliska u sheegay in saaxiibtiisii hore oo la yiraahdo Marjorie Dallas Armstrong ay dishay ninkaas kadibna ay ku khasabtay inuu meydka qaboojiyaha u galiyo waatan meesha ay sheekadu ka bilaabanayso Marjorie waxay ahayd naag aad u aqoon badan laakiin qabta xanuunka dhimirka horeyna loogu xiray inay dishay saaxiibadeedii hore FBI-du waxay ogaadeen in Marjorie ay tahay maskaxdii ka dambeysay qorshaha
Bisa Bumber waxay rabtay oo ay lacag ku bixisay dilka aabaheed si ay hantidiisa u dhaxasho. Laakiin su'aasha ugu weyn waxay ahayd Brian Wells ma wuxuu ahaa dhibane mise tuug? Baaritaankii ugu dambeeyay ee FBI-du ayaa shaaca ka qaaday xaqiiqada naxdinta leh. Brian Wells wuxuu xiriir la lahaa kooxda dambiilayaasha ah. Qorshuhuna wuxuu ahaa inuu bangiga galo isagoo xiran bam feeg ah ama been abuur ah si uu boolisku ugu handido kadibna lacagta loo qaybsado. Laakiin maalinta shaqadu ay dhacaysay, Brian wuxuu ogaaday inay khiyaameen saaxiibadiis oo bamka qoorta ugu xir rabaan uu yahay mid dhab ah. Markii uu isku dayay inuu cararo, way garaaceen, waxayna si khasab ah qoorta ugu xiran bamkii rasmiga ahaa, iyagoo u dhiibay khariirad been ah oo aan furo lahayn. Waxay rabeen inuu bamka ku qarxo si ay marnaba boolisku u helin markhaati nool oo farta ku fiiqeeyaga. Marjorie waxaa lagu xukumay xabsi daa'in, ugu dambeyn waxa ay ku dhimatay xabsiga dhexdiisa. Qisada naxdinta leh waxayna baraysaa in dambiilayaasha aysan lahayn saaxiib daacad ah iyo in qorshe kasta oo dembi ah uu ku dhammaan karo burburkaaga. Haddaba daawade, haddii aad ka heshay kiisaska dahsoon, riix buttonka like-ta, subscribe-na noo dheh channelka si aadan u seegin kiisaska xiga ee xiisaha leh. Mahadsanid.